نبي لا يا نور العين رسول لا يا نور العين حبيب لا يا نور العين صلى عليك الله زين. سيمينار aqoon kororsi ah oo loo qabtay gudoomiye macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee Ahlusunna wal Jamaaca ayaa maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda Daaha ee magaalada Muqdisho. Seminaarka oo socon doona muddo 4 cisho ah ayaa waxaa soo agaasimay Jamciyadda Al-Cawn lil-Cilmi wal-Culumaa iyo Raabitatu Tadwiir lil-Culuum al-Islaamiyya iyo jaamacadda Daaha. Seminaarka ayaa waxaa casharo ka bixinayay culamaa udiin caan ah oo ka mid ahaa Sheekh Axmed Macallim Yalaxo oo ka mid ah macallimiinta khubarada ah ee barnaamijka lagu casuumay. haddii intayna aan isu nimaadno war qofno hadal haddii la yiraahdo qof ba hadli lahaa waan in ka cudur daarnayaa ninkii inuu kuga aqoonta liitaa loo dhiibay walaalayaal walaalku mowduuca uu siiyey sidee wax looga tilmaamaa ardada sida loo farbaro oo higaada waxa la yiraahdo ama kiciska ardayga in la baro xifdiga sida oo maaragtay oo sugu karo ama carab ahaan ha naqato. gabagabadii seminaarka kadib ayaa waxaa la hadalnay qaar ka mid ah ahbaabtii soo agaasimay seminaarka. aniga ku hadlaaya afka Jamciyatul Cawn waxaan u mahad celinayaa marka koowaad Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaloo mahad celinayaa jaamacadda Daaha al-Caalamiyya oo gogoshaan noo fidisay oo mataqaana halkan ugu soo dhaweysay. Jamciyatul Cawn waxay soo abaabushay seminaar ka turjumahaya sida kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kor loogu qaadi lahaa, sida macallimiinta xirfadooda kor loogu dhisi lahaa, sida mataqaana meesha hadda ay joogaan looga sii qaadi lahaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay kulankani aadku qiimaha badan looga hadlayo horumarinta xirfadda macallimiinta dugsiyada Qur'aanka Kariimka ee gobolka Banaadir guud ahaan degmooyinkiisa kala duwan. anigoo ku hadlayo magaca jaamacadda Daaha al-Caalamiyya kulliya shariica wal qaanuun waxaan aad ugu faraxsanahay dadaalkani aadku qiimaha badan oo runtii ay sameynayaan jamciyadaha kala duwan. sidaa darteedna jaamacadda Daaha al-Caalamiyya barnaamijkaasi ay soo dhaweysay gogoshaan ay u fidisay ayna ka soo qayb galeen macallimiintani aadku qiimaha badan oo runtii lagu yaqaano inay dad badan soo saaraan. daawadayaal hoolkan ee ka dambeeya waa hoolka shirarka ee jaamacadda Daaha ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay seminar loo sameeyay qaar ka mid ah macallimiinta 17 degmo ee gobolka Banaadir. Saadam Cabdulle Siyaad, Shabakatul Mutaxaabuun Fillaah, magaalada Muqdisho.